hadday waxooda kugu shubaan weligeed ku deeqayso waxaad adigu gacantaada ku qabsato iyo maskaxdaada iyo taladaada iyo garashadaada waxaad ku qabsato wax ku deeqi kara intaasaa jira oo uu la jiro iimaan iyo kalsooni aad naftaada iyo dalkaaga iyo diintaada aad ku qabto wax kaloo ku deeqi karaa ma jira Soomaaliyeey dantaada u jeeso iska daa indhahaad u taagayso dalal kaleeto iyo wixii ka imaanay warka ayaynu tabcanay beereen aan tabcan oo badeena kala soo baxnay wax ku yaa oo xooleena aan xanaanaysano aan ku noolaano wixii waxayna dheer aynu kaalmaysano asaan cadow ku ahayn dalkeen iyo dadkeen arinu intaas weeye diinta aan gudbo nabigeena suubana maxamed tawrad buu sameeyay ilaahay baa u dhiibay tawradda ku ahanay tawrad buu sameeyay meel adduunka aad tagto aadan islaamka ku arkayn yaa fidiyay waxa yaa gaartay tawraddii nabi maxamed loo soo dhiibay ilaahay u soo dhiibay baa fidisay oo qof walba oo islaam ah taasa saaran gacanku markuu dhashay waa shirinay waxaan war dhageysta waxaynu caabudnaa waa ilaahay weynaa waaxid ah wuxuu inoo soo mariyay oo inoogu sheegay dariiqan raacinayna kitaabkiisa kariimka wuxuu inoogu soo dhiibay rasuulkeennii suubanaa inoogu soo dhiibay ha inoogu soo dhiibay waxaa halkaas ka soo ifbaxay ficilkii iyo qowlkii nebigu uu ka tegey ayaa ka soo ifbaxay xadiis buu noqday marka qof walba dariiqadiisa ha haysta hadduu doono laakiin midka inaga dhexeeyaa waa tiirkaas dariiqaada wado laakiin kaas uu ilaahay guddoonshay ummaddaas aan abuurtay inta midowdaan ha kala furfurmina taasu ha noqota asalkii dariiqa la raacaya kaas way ku dhaqaaqeen mahad iyo ammaanba waa u jeedinaynaa haddaan taariikhda dib u raaco culimadii la tirinayey ama tawriyiintii la tirinayay magacyadooda waxay ahayn kuwii badbaadiyey kollayba dadka Soomaaliyeed inay baaqi ku ahaadaan islaamnimadooda dawladdu markii ay gaarto go'aan ama sharciga qaranka la dhigo fuliyayaal bay u baahan fuliyayaalkii adinka weeyaan waacidinta weeyaan dariiqooyinka weeyaan madaxda masaajidka weeyaan iyagaa la rabaa inay fuliyaan iyagiyo wasaaradooda yaa mas-uuliyad dul saaran dagaalka labaad waxa weeyaan midka dhaqaalaha waad ogtiin macaashadu meesha ay sii marayso haddaynaan annagu inta marada dhexda ku xiranno adkaysanno aynaan tabcinna weligaan ka bixi mayno gun iyo gacan horsi baan u dhammaanaynaa ma gun iyo gacan horsi baan ku jiri karnaa insaanku sharaf buu leeyahay karaamuu leeyahay oo maanu inta ilaaheen cuskanno iyo nafteenna maynu qof iyo yaanba inta qaato waa ka halkaa dow ka baxaye maanu wax ku abuurno bal qof walba gurigiisa muu ku abuur geed lima inuu bixiyeen kala arkay oo geed babaaya ku abuura oo geed cambaa ku abuura waa baxaya qof gurigiisa uusan baxayn ma jirto hortiisa waxaan kaga bixi karnaa inaanu u jeedsano tacab kii badgalaa ha galo kii biri galaa beer ha ka doonto kii xoolo haysta ha tabcado ha xanaanaysto kii wax kaleeto oo qiimo le qabanaya ha qabto qof gaajaysano gob ma ah gun wey wixii la rabo iyo dantii la rabaa laga samaystaa oo maxaanu nagu kalifaya inaanu saas u gurowno dadkeenna inaan jahayna doonaya innagaa la rabaa inaan jahayno tan saddexaad waa dagaalka shacbigeenna lagu abuuray in maanta 16 sano kadib oo dulligii foosh xuda aynu ka soo baxnay dad ahaan iyo qaran ahaanba haddana la doonaya dib in loogu celiyo qabiilkii xumaa oo isticmaar ka dambeeyo waa isticmaarka xabashida waxaa loo baahan yahay ummadeenna inaynu hanuunino oo culimadiinaan waaweyno weliba aad marada dhexda ugu xirataan ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahan inay ku tarsaasiyaan oo kor ugu hadlaan oo si geesinimo ugu hadlaan inay ummadooda toosiyaan oo ka hanuuniyaan dariiqa jahannamka ah dariiqa muslimka inay ku leexiyaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته